sayna difaaca xuquuqda aadanaha oo runtii ah tiir weyn oo qof kasta oo bilaaadana oo Ilaahay abuuray ay tahay wuxuu xaq u leeyahay. Waanu mahadcelinayaa wasaaradda iyo hay'adda Alayd iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay programkan 16 cisho soo socday ee xiritaankiisa lagu asteeyay 10 December maalinta xuquuqda aadanaha adduunka oo loo aqoonsaday. Ujeedada kulankan iyo maalintan iyo tababarka muddada soo socday wasaaraddu inoo soo daadihinaysa waxa weeye in la ilaaliyo xuquuqda dadkeena loona sinaado dhammaan xuquuqaha mid shaqo mid siyaasadeed mid arrimo bulsho mid caafimaad mid nololeed mid kasta in loo sinaado dadkana laga wacyi geliyo tacadiyada iyo arrimaha la xiriira lana dhowro guud ahaan xuquuqda aadanaha. Waa door qof walba saaran inuu dhinaciisa iyo meesha uu taagan yahay. Tusaale qof waliba wuxuu mas'uul ka yahay inta uu isagu markaas mas'uuliyadiisu gaarsiisan tahay. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina yidhi qofka dadka ugu khayrka badani waa qofka dadka wanaaga fara xumahana ka reeba. Marka haddaad wax wanaagsan dadka u sheegtid wax walba wanaagsan oo aad samaysaa waa khayr. wax walba wanaagsan maxaa la yiraahdaa khayrka wadada iimaanka waxa ugu yar inaad wadada ka dudo dhib yaala. Marka inaad qof dhan caawisaanade waa wax aad u weyn diinteenu aad bay uga hadashay. Ka wasaaradda cadaalad ahaana annagu runtii waxaanu hadda u dhisanahay bulshadana noo igmatay madaxweynuhu noo igmaday waa inaanu cadaaladda xoojino waa inaanu ka shaqeyno dadkan iyo midnimadoodii iyo qof walba sidoo cadaalad ku heli lahaa. Waxaan si guud bulshada ugu baaqaynaa waqooyi bari ka wasaarad ahaan inaanu taaganahay ilaalinta cadaaladda inaan dhowro oo qof walba oo dhibana meeluu joogoba aanu baadi doonayno u ballan qaadayno inaanu